adduunka ayaa mar labaad fursad u helay inay daawadaan ilaalada hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un mar uu booqasho ku tagay waddanka Singapore, balse arrintani ayaa ka turjumaysa nabad sugidda hogaamiyaha. Marka aad ku sugan tahay Kuuriyada Waqooyi, ilaalada Mr. Kim ayaa isticmaala 3 saf, balse taasi ayaa la sii adkeeyay xilliga uu ku sugnaa waddanka Singapore, iyadoo dadka dhammaan indhaha ku hayeen nimanka dharka madow xiran. Habka lagu soo xusho waxaa ka mid ah dhererka qofka. Waxay u baahan yihiin inay la egyihiin dhererka hogaamiyaha ugu sareeya, aragoodana uusan lahayn wax dhibaato ah. Waa inay muujiyaan inay leeyihiin xirfadaha sida xabadda loo rido iyo karatayda, iyagoo dadka isaga dhicin kara gacmahooda, islamarkaana loo tababaray inay u adkaystaan dhibaatada jir ahaan usoo gaari karta. Markaas kadib ayaa loo ogolaanayaa inay noqdaan ilaalada hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, waxa ayna qaadanayaan tababaro aad u adag. Tababarkan ayaa waxaa ka mid ah sida loo isticmaalo qoriga gacanta iyo xarbida. Dadka tababaraya waardiyayaashan ayaa gala tartamo aad u adag, waxayna maraan xaalado adag sida loo aqoonsado. Dhanka hogaamiyaha waxaa u dhexeeya 6 ilaa iyo 4 ilaaliyaal ah. 2 ka mid ah ayaa ku orda dhankiisa midig, 4 kale ayaa iyagana gadaal ku weheliya hogaamiyaha. Waxay taasi caddeyn u tahay maamulkan. Qaar ka mid ah shacabka Kuuriyada Waqooyi ayaan loo ogolaan inay qori ku qaataan agagaarka hogaamiyaha dalka. Ilaalada Kim Jong-un ayaa ka yar kuwii ilaalin jiray aabihiis tiro ahaan. Ilaalada ayaa ku libisan dharka galbeedka sida lagu arkay markii ay yimaadeen Singapore, hase yeeshee habka keliya ay wax isku gaarsiiyaan ayaa ah raadiyaha. Waxay isticmaalaan dhar gooni ah oo lagu aqoonsado iyo hadallo meldahan. Waxaa jira xafiis gaar ah oo u qaabilsan howlaha ilaaladan, waxaana hadda diyaar u ah 200 ilaa iyo 300 oo ilaalo ah, iyadoo qaar ka mid ah ilaaladan ay haystaan khibrad shaqo muddo 10 sano ah. Madaxda ilaaladan ayaa ka kooban 2 ilaa iyo 3 safka ammaanka Mr. Kim. Waxaa jira xafiis kale oo qaabilsan ilaalinta dusha sare ee hogaamiyaha marka uu joogo dalkiisa iyo marka uu ka maqan yahay, iyadoo xafiiska ugu weyn ay mas'uuliyadiisu tahay inay sugaan ammaanka dhismayaasha, xafiisyada, meelaha gaarka loo leeyahay ee uu booqo. Baaritaan dhowaan laga sameeyay booqashada Mr. Kim ee Singapore ayaa lagu ogaaday in 3 diyaaradood uu kaga yimaaday waddankiisa Kuuriyada Waqooyi. Ragga iyo dumarka ayaa ku howlanaa sidii u taageeri lahaayeen howlgalka Mr. Kim. Waxaa sidoo kale jirta waax caafimaad oo u gaar ah hogaamiyaha. Ugu yaraan 2 ka mid ah dadkan ayaa ku weheliyay Singapore. Marka laga hadlayo ammaanka Mr. Kim, waxaa jira 2 waax oo arrintani oo keliya ku howlan. Marka la soo xulayo ilaaladan, waxaa xitaa la baaraa taariikhda qoyskooda ilaa iyo awowgood. Waxayna u baahan yihiin dad xiriir la leh qoyska reer Kim iyo taliyayaasha ciidanka. Waqooyi Kuuriya waxay qaadaa tallaabooyin aan caadi ahayn si ay u ilaaliso Kim, ay ku jiraan cuntada, tijaabada dhadhanka ka hor inta aan loo adeegin. Sidoo kale suuligiisa gaarka ayay baaritaan ka hor iyo kadib ay ku sameeyaan si aysan dowlado shisheeye u falanqayn karin DNA-da ama macluumaadka caafimaadkiisa.